waxaan halka ka soo jeedinayaa warbixinta maalinlaha ah ee guddiga ka hortagga COVID-19 ee dawladda Puntland. Guddiga amniga wacyigelinta iyo ka hortagga COVID-19 wuxuu sameeyay guddi hoosaadyo 3 ah oo kala ah guddiga wacyigelinta iyo diyaar garowga, guddiga maaliyadda iyo arrimaha maciishada iyo guddiga amniga. Guddigu wuxuu xaqiijinayaa in ilaa iyo hadda aanay jirin qof laga helay Puntland caabuqa COVID-19. hase ahaatee waxaa jira shakhsiyaad looga shakiyay tiradooduna dhan tahay 5 qof oo ku jira goobaha karantiinka. natiijada baaritaanadoodana dhawaan ayaa lagu dhawaaqi doonaa haddii lahayd sida ugu dhaqsaha badan ee ay noo soo gaaraan. guddiga wacyigelintu waxay maanta la wareegeen 10 qof oo 2 ka mid ah yihiin reer Puntland oo ka soo galay soohdinta dhanka Somaliland horeyna uga yimi qurbaha. dadkan oo aanay ka muuqan wax calaamad ah oo tilmaamaya caabuqa COVID-19, 8 qof oo ka mid ah dadkaasi waxay u socdaalayeen gobolada dhexe. waxaana lagu wareejin doonaa haddii lahayd maamulka Galmudug iyadoo la raacayo nidaamka caalamiga ah ee karantiinka. 2 qof ee reer Puntland waxay iyana gudanayaan inta u hartay 14 maalmood ee loo qoondeeyay karantiinka. guddigu wuxuu diyaariyay goobo loogu talagalay in lagu karantiino dadka looga shakeeyay caabuqa COVID-19 ee magaalooyinka Boosaaso, Garowe, Gaalkacyo iyo Galdogob. waxaana usbuucan si rasmi ah loogu hirgelin doonaa 3 goobood oo cusub oo kala ah Baran, Qardho iyo Buuhoodle. waxaa si joogto ah u socda wacyigelin baaxad leh oo ka socota dhammaan gobolada iyo degmooyinka Puntland, kaas oo ay tabinayaan TV-yada iyo idaacadaha maxalliga ah. waxaana sidoo kale guddigu sameeyay baro bulsho oo aad ka heli doontaan xogaha rasmiga ah ee la xiriira xaaladda guud ee COVID-19. barahaas oo kala ah Facebook-ga iyo Twitter-ka. waxaa sidoo kale la sameeyay barta xiriirka dadweynaha degdega ah oo aad ka wici kartaan telefoonka 343 24 saacadoodna si lacag la'aan ah aad soo wici kartaan. guddigu wuxuu sameeyay akoonno xisaabyo loogu talagalay taakulaynta ololaha ka hortagga COVID-19. akoonnadaas oo kala ah bangiga dawladda akoon nambarka 34218, bangiga Amal akoon nambarka 10133033409, bangiga Dahabshiil akoon nambarka GRWD ama GRWD eber 8411, bangiga Salaama 8 akoonka Sahal waxa weeye 3 akoonka Dahabna waxa weeye 88 waxaa guddigu ka codsanayaa dadka reer Puntland hay'adaha taageera dawladda Puntland in ay ka qayb qaataan ololaha lagula tacaalayo ka hortagga caabuqa COVID-19. guddigu wuxuu la kulmay hay'adaha warbaahinta waxaana la isla gartay in warbaahintu ay ka qaataan xogta rasmiga ah ee la xiriirta COVID-19 ayna si joogto ah uga qayb qaataan arrimaha amniga, wacyigelinta iyo ololaha ka hortagga COVID-19. guddiga maaliyadda iyo arrimaha maciishadu wuxuu si joogto ah ugu kuurgalayaa awoodda kayd ee maciishada aasaasiga ah isagoo ku kalsoon inaysan jirin wax gabaabsi ah dhinaca kaydka. guddigu wuxuu sidoo kale si joogto ah ula xiriirayaa ganacsatada si maciishada aasaasiga aysan kor u kicin qiimahoodu. guddigu wuxuu markasta la soconayaa dhaqdhaqaaqa xaaladda COVID-19 ee deegaanada kale ee Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka sida wadamada deriska. aad iyo aad mahadsantihiin. warbixintaasi waxay ahayd warbixintii guddiga wacyigelinta, guddi hoosaadka wacyigelinta